shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa kamid ahaa in guddi loo saaray si baaritaan ay ugu soo sameeyaan xiriirka Axmed Madoobe iyo sidoo kale al-shabaab ka dhaxeyn kara dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in walaac badan ay ka qabaan in madaxweynaha Jubbaland ee dib loo sii doortay Axmed Madoobe uu xiriir dhow la leeyahay ururka al-shabaab kadib markii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay Ras Kamboni iyo ciidanka daraawiishta ee Jubbaland dagaal ku dhaxmaray deegaanka Ras Kamboni kadibna ciidamadii dawladda halkaasi looga adkaaday ciidamada Jubbaland ayaa waxa ay sheegteen in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalkii dhexmaray ciidanka dawladda oo ka koobnaa kuwa militariga nabad sugidda iyo sidoo kale booliiska oo maalmahan dawladdu ay diyaarada ay ku daabuleysay si ay u sugaan amniga Ras Kamboni iyo deegaanada kale ee hoos yimaada dawladdu waxa ay sheegtay inay hore ugu tala gashay ciidamadaasi inay la wareegaan xarumaha ciidamada ATMIS ay ka baxaan maamulka Jubbaland waxa ay sheegeen in ciidan iyo saraakiil la socotay dagaalka ku soo qabteen sidoo kalena wali ay baaritaan ay ka wadaan deegaanada u dhow Ras Kamboni oo ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen oo iminkaba gacanta maamulka Jubbaland ay ku jirto maamulka Jubbaland waxyaabaha kale ay sheegeen waxa kamid ah oo dagaalka ay ku soo qabteen diyaarad drone ah oo ay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay adeegsanaysay dagaalka dhexmaray ciidanka daraawiishta ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale ciidanka dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya dagaalka oo shalay ka qarxay deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa la sheegay in guul ay ku gaareen ciidamada daraawiishta ee maamulka Jubbaland ciidamadii dawladda qaarkood waxa gacanta ku dhigay maamulka Jubbaland qaar waxa la sheegay in ay galeen dalka Kenya sidoo kale warar aan la xaqiijin karin ayaa waxa ay noo sheegeen in ciidamada iyo saraakiil qaarkood ay gacanta ku dhigeen ururka al-shabaab dawladdu waxa ay sheegtay in baaritaano ay ku bilowda arintaasi sidoo kalena ay sharciga la tigsan doonto madaxweyne Axmed Madoobe oo dawladdu ay hore u sheegtay inaysan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland dawladdu sidoo kale waxa ay guddigan ugu baaqday in si degdeg ah ay jawaab uga soo bixiyaan si loo ogaado xiriirka ka dhaxeyn kara Axmed Madoobe iyo sidoo kale ururka al-shabaab waxyaabaha la isweydiinayo arintaasi shakiga keenta ayaa waxa la leeyahay waxa ay tahay sida sahlan ciidamada Jubbaland u sahashay inay ku gaaraan deegaanada dawladdu ay ciidamada geysay Ras Kamboni waxaana la leeyahay sababtaasi ayaa keentay in dawladdu ay baaritaano arintaasi ay ku bilowdo dawladdu waxa ay sheegtay in jawaab adag ay bixin doonto saacadaha soo socda waxa la leeyahay dawladdu waxa laga yaabaa in ciidamo kale ay u soo daabusho deegaanada maamulka Jubbaland si ay dagaalka ula sii galaan ciidamada daraawiishta ee maamulka Jubbaland oo iminkaba ku gacan sareeya sidoo kale gacanta ku dhigay ciidamadii dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ee maalmahanba ka howlgalayay deegaanada Jubbada Hoose gaar ahaan deegaanka Ras Kamboni halkaasi oo saldhig weyn u ahaa taliyihii ciidanka militariga ee guutada gaashaanla dhexe Xasan Ciraaqi ayaa isaguna cod uu soo duubay warbaahinta maanta si aad loo hadal hayo waxa uu sheegay in uu nabad qabo sidoo kale ciidamadiisa uu ku dhex jiro kadib markii maamulka Jubbaland ay sheegeen in gacanta ay ku soo dhigeen Xasan Ciraaqi iyo saraakiil kale oo ciidamada dawladda Soomaaliya ka tirsan oo dawladdu ay geysay deegaanka Ras Kamboni sidoo kale waxa ay maamulka Jubbaland ay sheegeen in ay soo wada bandhigi doonaan xogta rasmiga ah ee ku saabsan ciidanka dawladda looga qabtay dagaalka balse waxaan arki doonaa xaaladdu sida ay noqon doonto saacadaha soo socda